midowga Afrika ayaa soo jeediyay in hal sano oo dheeraad ah looga daro joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Madaxa Golaha Ammaanka iyo Nabadda ayaa isbuucan u sheegay guddiga inay muhiim tahay sii socoshada howlaha AMISOM ee Soomaaliya, taasi oo ay ku ilaalinayaan nabadda muuqata ee la gaaray. waxaa lagama maarmaan ah in aan si taxadar leh ugu fakarno guulihii laga gaaray dhibaatadii ka taagneed Soomaaliya, taasi oo ay naftooda u hureen Soomaali badan, AMISOM iyo saaxiibo kale. waana wax wanaagsan in geedigaasi hore loo sii wado si loo soo celiyo nabadii ka jirtay Soomaaliya 30 sano ka hor, ayuu yiri madaxa Golaha Ammaanka iyo Nabadda. isagoo sii hadlayay ayaa waxa uu intaasi ku daray in ahdaafta la xaqiijiyay aan si fudud loo lumin, balse ay hore u sii socdaan si qurux badan oo xushmad badan ay ku dheehan tahay, si wanaagsan la isugu wareejiyo ammaanka dalka iyo gacan ku hayntiisa. asbaabaha aan soo sheegay awgii waxaan soo jeedin lahaa inay guddiga sameeyaan hal sano oo dheeraad ah oo lagu kordhinayo waqtiga joogitaanka AMISOM ee Soomaaliya, ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii wata madaxa Golaha Ammaanka iyo Nabadda Ismaaciil. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa la filayaa inay ka fariistaan arrinta AMISOM inta lagu guda jiro bishan May, waxaana la filayaa inay kordhiyaan waqtiga joogitaanka ciidamada AMISOM ee gobolada dalka Soomaaliya. guddigaasi ayaa hore u qorsheeyay in sanada 2021 ciidamada midowga Afrika ay dalka isaga baxaan, ammaankana lagu wareejiyo ciidamada Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya kadib 10 sano oo ay ciidamada AMISOM dalka joogeen. laanta taageerta howlgallada nabadda ee midowga Afrika ayaa ugu mahad celisay ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya geesinimada ay ku muujiyeen goobaha dagaalka iyo in naftooda ay khatar u geliyeen sidii ay xasilooni iyo nabad ugu soo dabaali lahaayeen Soomaaliya iyo qaaradda intuba. We will continue to work closely with the federal government. waxaan jecelnahay Soomaaliya. Whoever was here in 2007 when we came in and comes back today cannot recognize the place. Thanks to the courageous and selfless service of the men and women of AMISOM. AMISOM ayaa Soomaaliya ka howlgashay sanadii 2007 iyadoo waajibaadkaasi ay u xil saareen Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika si ay xasilooni iyo nabadgelyo ugu soo dabaalaan Soomaaliya. laga soo bilaabo muddadaasi AMISOM ayaa waxa ay garab siinaysay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya si ay u xasiliyaan Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee muhiimka ah, isla markaana dalka loogu xoreeyay ururka Al-Shabaab ee la xiriiriyo ururka Al-Qaacida. joogitaanka AMISOM ee Soomaaliya ayaa ka kooban 3 qayb. qaybta militariga waa qaybta ugu weyn 3 qaybood ee dalka Soomaaliya gudihiisa ku sugan. ciidamadaasi ayaana laga kala keenay dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo dalka Ethiopia. waxa ayna ku kala baahsan yihiin 6 aag oo daboolaya bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, dhulkaasi oo ay hore u maamuli jireen ururka Al-Shabaab. ciidamada Uganda ayaa waxa ay ka howlgalaan aaga koowaad oo ka kooban gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose. ciidamada dalka Kenya ayaa waxa ay mas'uul ka yihiin aaga labaad oo ka kooban Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. aaga saddexaad ayaa waxa uu ka kooban yahay Bay iyo Bakool iyo sidoo kale gobolka Gado. qaybta saddexaad ee hoose waxa ay hoos imaanayaan ciidamada ka amar qaata dalka Ethiopia. bishii February ee sanadkan waxaa Soomaaliya laga saaray 1000 askari, taasi oo tirada guud ee ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka dhigtay 9100 askari. hadda AMISOM wax badan bay ka qabatay, ammaanka wax badan bay ku soo celiyeen. intay imaanin ka hor dhib barbaleen badan baa jiray. dawladda Soomaaliya shaqadeeda hadda waxay ku xiran tahay AMISOM. marka hadda anaga AMISOM Soomaaliya si fiican bay noo saacidaysay. wax dhibaato aan ku qabnana ma laha. wiilal idinkoo kala ah marna hortiin ma imaanayaan, mana idin soo wajahayaan. maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo, dhiiranaan inaad la hortaagan tihiin. waxaan ugu tagaynaa meel kasta ay joogaan, annaguna waa idin garab taagannahay. ma maqlaysaan? annaguna waa idin garab taagannahay, waa idin soo booqanaynaa, ciidamo kale idin ku soo kordhinaynaa, waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan. marna ma yeelayno. ciidamada xoogga dalka ee uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka oo ay mas'uuliyadooda tahay ammaanka qaranka, jiritaanka iyo xorriyadda, sharafta iyo kala dambeynta waddanka,
ma u diyaarsan yihiin waqti xaadirkan la wareegidda ammaanka guud ee dalka? su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaanu hor dhignay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah madaxa hay'adda cilmi baarista ee Center for Global Study. sidan ayuuna ugu jawaabay. marka Amisom hadda inay maartay mar labaad ay tiraha hasna hal igu darunta ay andarada Soomaaliya ay kamid tahay inta hadda imanka ay hayaan ciidanka Soomaalida ay Turkigu tababaray ay runtii ayaaba qaban karaba waxa kaliya qabtaan waxay tahay hadda airportka ilaaliyaan madaxtooyadana way ilaaliyaan muxuu dekadana way ilaaliyaan waa inta kale waxay qabtaan iyo hadda hawlgallo weyn ay sameeyaan malaha kuwa yani jawalaas la geeyay iyo hadda kuwa jooga yani Berlin joogna hadda hawlgalay hadda sameeyaan sanadaha ugu dambeeyay habeeraatay ma jirto marka Emerson waxa ku naagsan wadankan isaga baxdo maarta Soomaaliya diyaar bay tahay inay amnigeeda runto amniga Soomaaliya maanta xamar lahaana maxay tahay waxa kaliya la wardiina waa dekada airportka iyo maarta baarlamaanka madaxtooyada intana waxa ku filan ciidanka kumaanta Turkiga waxa ku filan ciidamada soo tababareen ciidanka Soomaaliya soo tababareen hadii ciidanka Soomaaliya maanta laga qaadi lahaa hadii ciidanka Soomaaliya laga qaadi lahaa cunaqabatinta laga qaadi lahaa dalka asaa qaban lahaa marka waxa weeye runtii waa dad waxa weeye waa ciidan cunaan lahay weeyaan oo mushaar fiican aan qaadanaynin oo agab fiican aan haysanin oo runtii dib badan yani wadanka ku joogo runtii yani wadankiisa yani nafta waa iska nafta horeeyay wadanka joogo weeyaan hadii maanta qalabkooda hadii qalab fiican la siin lahaa hadii mushaar fiican la siin lahaa hadii moraalka loo dhisi lahaa wax badan bay qaban lahaayeen. Cabdilil Cusmaan Samo STN Nairobi.